waxaan aasaasnay wax la yiraahdo Somali Institute of Tourism and Hospitality macadka dalxiiska iyo martisoorka Soomaaliyeed oo dhalinyaro badan aan ku tababarnay dhalinyaradaasi runtii maanta boqolkiiba 95 ay shaqeeyaan mishaar qaataan reerarka biishaan xirfadii ay ka faa'iideen annaga hawshii ku jirno duruufaha dalka ka jiro iyo caqabadaha amniga ka jira dalka ayaa annaga dhinac naga saameeyay gabi ahaan macadkii waa naga burburay meeshii kumeenan istaagin waxaan dib u soo nooleynay inaan at least maartaan hotelada gudahooda ugu qabano maantana macadkii dib aan u soo nooleynay dhalinyaro wax ka barato oo waliba lacag la'aan aan ku tababarnaa 18 arday ayaa hadda tababar u socda gabdhii wiilal leh oo xirfadaha kala duwan haday noqon lahayd daryeelka macaamiisha oo la yiraahdo customer care-ka ama haduu noqon lahaa maarad qofka inuu receptionist noqdo soo dhaweynta ama waiternimo inuu noqdo dalab qaado oo noqdo inta wada tababar u socdo inay wax ka faa'iideyna waxa la jeenay markay dhameystaan si practical inaan u tababarno oo cilmiga kadibna ay noqdaan dad shaqaysta oo wax barta maartay wax ka soo saar waxa ay barteen annagana waxa sharaf inoogu filan inaan maanta cilmiga aan soo baranay waqti aan gelinay annaga jeebkeen waxaan ka bixinaa aan ku kabnay inaan dhalinyaradaas wax faa'iidaan wax bartaan ayaguna iska baan maartay noloshooda ay maartay maareeyaan waxa hadda aan bixino waxa kamid ah wax la yiraahdo luqadda Ingiriiska ku sheegay raalicaada customer care management wax la yiraahdo waxaan bixinaa restaurant management oo qofku ku fahmayo restaurant muxuu ka koobay meeq uu kala baxaa waxaan ognahay duruufii waxa la soo waqti waxa la soo mar qofka isagoo dacas ka wato isagoo ruma iska wato isagoo shaatiga isaga furan yahay isagoo kala daatay shaqadii maada dhameeyo qofkii uu arko inuu saxan yahay laakiin sax ma aha hadda waxaan rabnaa waxay tahay bal inaan u diyaarno shirkadaha sida gaarka loo leeyahay bangiyada dadka ka shaqeeyo xarumaha dawladda qaar inuu qofka hanaanka shaqo laga rabo sidoo u diyaar garoobi lahaa waajibka saaran labiska akhlaaqiyadka waxa ugu yar tiishugu isticmaal meesha dhigal waxaas inaan u diyaarino markaan dalka ku soo laabtay dhalinyaro badan oo saaxiibanahayna aad iigu dhiirigeliyay ilaa markii dambe dawladdan maaragtay aan shaqana dhaxmartay oo wasiir maaragtay wasiirka markaas joogay runtii aad aga mahadnaqay wasiir injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo runtii markaan u bandhignay in adduunka ay taagan tahay wixii aan ka soo shaqeynaan ka gadno asagana meeshii markaas ay taagneed nagala jaan qaaday soo raacnay Madrid wada tagnay adduunkii u bandhignay Soomaaliya iyo quruxdeedii bilicdeedii adduunka aqoonsaday oo ku biiro hay'adda dalxiiska adduunka maxaa xigo su'aal qof isweydiinaya malayna ku biirista aan ku biirnay waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay adduunka markii laga gaarayo arrimaha dalxiiska la xiriiro Soomaaliya inay cod ku leedahay tashiga ay ku leedahay mid ugu horeysa haddaysan Soomaaliya fadhinin go'aano qaar inaan la qaadan karin oo ay matashaa Soomaaliya joogto marka si go'aan la qaadan karaa taas marka waxay ku tusinaysaa dowladnimadeena iyo awoodeena iyo horumarka iyo dowlad maanta meesha marayso marka guul noo soo wareegto dhammaanteena waxaa moodaa dalxiiska inuu dadku aysan aad u fahansaneen oo fikirka dalxiiska qofka uu ka haysto kaliya uu yahay xeeb la fadhiisto in loo labisto xeebta la tago sawiro la gala kaliya bal adduunka wuxuu ka sameeyaa dhaqaalo wadamo badan oo islaam ah dhaqaalo badan ka sameeyo oo ka soo galaan taas ayaa runtii ah markii dadka yimaadaan inay helaan hoteelay ku degaan adeegyo inay helaan dhaqankii suubanaa Soomaaliga saxda ah inay arkaan waxyaabahaas marka waxay runtii ka turjumaysaa authentic waxay dhahnaa ama culture ama dhaqanka saxda ah Soomaaliga inuu qofka dibadda ka yimaado arko bal ajnabi kaliya waxa u baahan Soomaali dhaqankeeda inuu arko ama bilicdeeda ama quruxdeeda inuu arko dad badan oo Soomaali dibadda ku dhashay jiro dad badan oo Soomaali wadanka wax badan ka maqnaay jiro xiisa iyo han weyn u qabin dalka inta yimaadaan ku dhex dalxiisaan tagaan muxuu ah goobaha ay taariikhiga ay tagaan meelaha dabiiciga ah sida badda iyo maartooyada beeraha
meelaha bacaadka ay tagaan ay arkaan ay kusoo dalxiisaan taasna runtii waxay ka tarjumaysaa inay dadkii dalka ka maqnaa inta jeclaadaan ay kusoo noqdaan. marka waxaasoo dhan markii laisku soo duuba runtii waxay ka mid tahay waxyaabihii ujeedka u weyn ahaa inaan waxbarasho aadno dalka wax usoo barano usoo laabano kuna shaqeyno kana dhex shaqeyno dadkana u faa'iideyno annagoo runtii ilaalinayna maaragtay wax badan oo dhaqanka la xiriira ilaalinayna taasaa marka waxay keentay runtii inaan aada u dhiirigelin dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan.